een Sheekh Cabdiqaadir Kashk dad badan waxay isweydiinayaan amba lagaba yaabaa inay isweydiinayaan nacaybkii karaahiyadan faradhaafeed arkayso dadka qaar in si qasada loogula duldhacaya amba loo farfiiqayo ma la oran karaa maxaa urxumada amba uurgubaarnimada keenay maxaa sabab loogaga dhigay su-aasha nacaybka iyo urxumada maxaa keenay diin ahaan markaan u fiirino diinta islaamka horta ma qabta nacayb wax la yiraahdo intaan diinta marka sharaxeeda aanan gelin aniga shakhsi ahaan waxaan arkaa waxa keeni kara saddex waxyaabood kale haddaan soo qaato dadka ku soo koray inkastoo aniga aan miyiga aadin laakiin khibradeyda dhulka miyiga oo kale waxaa laga yaabaa inay ku soo koreen isguruubaysi iyo dagaallo oo hore u dhaxeeyay qabiilkii faca iska celi qabiilkan dagaal hore naga dhaxeeyay markaas nacaybkaas inuu markii hore qofka lagu soo koriyay canuga yar markuu yar yahay siisa nacaybka ma qabo canuga yar waxa laga yaabaa bahal arka xataa inuu ma aragtay u qoslo la ciyaaraha nacaybka qofka wax lagu abuuro ma nature aan qof wax u qabo ma aha laakiin يعني سو إلى القرآن كشيء شيطانك إنه ما أركت دور كلها نعيب كسيسة مركز تاوي جرتا أو نعيب كحكيني كرا حمر حتى أن كنا الله قبيلة ده حمر نعيب كاس لحدو أيوة درس إيش جورسده هذانا نعيب كوضع لحيا مرك خارق ده وحد كدري ميسا مركز شرايان قالوا كلا سيو عين جرتي مركز تاثرت نعيب وحويان حق environment بولشدي أو جهلي كان ما هم تفوض اللي صاريد ما تسمع لك وحن كوضع نعيب كجنرال أنا يا دي ويدسي تاوامد نعيب كلا بعض إنه حكيني كرا عقدة أخف جوري يسكن نشأهان كسر كرب ضد وحاجرة صودا ومعركة نيجاتيف جرى نفسي عذر نفسي نيجاتيف كسخف كدوك سكر وحول بالنيجاتيف إن لو تصل يرانتي سو إذا نبكي هذا لا هاي إياه جهل الديماد إنه كان خف كدوجين تدي علم في عن أوليه هاي أو حق هذا نعيبكم أور مان أما فهم ديناد أو خلدن لكن فهم ديماد أو خلدن يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا حكوا أنس ابن مالك oo gurigiisa ka shaqeyn jiray 10 sano wiil rasuul Allah keen wuxuu yahay Anas hada awoodid inaad seexatid soona toosid adoo qafna xumaan aadan u qabin sidaas samee sababta taa waa sunnadeedii kii sunnadeedii jeclaadana yawm al-qiyaama anigoo ila degi doona hay taa waxa dareemaysaa marka in ma aragtay oo xataa nabigan uu ku oran jiray asxaabta ha ii sheegin asxaabteedu waxay iga sheegeen ama ay sameeyeen sababta mar rabo aan qof xumaan u qabo inaan la geeriyo يعني نعيب إنه صن ما أعرف ماشي جرين ذاك السجن نعبنا حتى هو ناجين جري مركي أبارد على حاله وسيء غير مكة ابن فقوا مركو حاله وديبي مرك هذا مركو يمد مكة فراين كله تسهل وسجع في اذهبوا فأنتم مطلقاء ها مركه يعني النبي كان عليه الصلاة والسلام سو وينسون تشارشل ويريو يعني وحو أنا كب فيو هذا عذر كجوش ذاك مركي يقول جاران هذا dan kale markay guuleystaan waxa ka adkaada cudurkii caqdadii dadkay u qabeen inay laayaan ka ma aragtay argoosigi laakiin nabiga maxamed waxa nin ka fiyo ka bogsooday cudurkaas muusan xambaarsaneen asxaabtiisu uu sheegay mar qofka ugu horeyso gali doono waa qof ahlu janna ni wiil dhalinyaro wuxuu noqday ansaar oo weysaqaadkii ka muuqda mar labaad mar saasal wiilka uu noqday marka Abdullah ibn Amr ibn al-Aas ku cibaado badan oo kamid ah asxaabta wuxuu yiri ninkaan artis ogaadana wiilkii uu tagay wuxuu yiri aniga aabahayga cawlaadan dhaxmarto waxaan ku dhaartay 3 habeen inaan guriga la seexano martaba ku noqon kara wuu soo dhaweeyay 3 habeen wuxuu cibaado dheeraad kuma arkin markuu googasho isrogaay uu ilaahay xusi jiray markii dambe aan ku yiri warsaan aniga aabahayga nacab dagaal lama dhaxmarina nabiga sida yiri waxaan rabaa inaan ogaado wuxuu yiri waa iga sida adiga aragtay weeyaan laakiin se kaliya ma seexda habeenkii anigoo qof xumaan qalbiga ugu hayo يعني نيدي في عن أيام ما أركتي سحرة مركتي إسلام كصحة أهيد وتا وما أركتي والنبي عليه السلام يري دب عليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء لحظين وحال صادق عذرك ومضي هركو عجري حسد نمدي اسم عيبك فأما البغضاء فإنها الحالقة ويرنعيبك واتي حيريس ما أنا أورنا يوحي حيرتا تما دين تاذي وحيرتا دين تاذي ترتريسها مركت تا فهم كاس مركت خفك لغا قلدي اللغو أبوري مثلا آيات دي هيد أشداء على الكفار رحماء بينهم ده قالوا إنه يكون أدقيهين دتكي إنه ما أركتي البغض في الله نعيبك إلهي دراسة وحين لونه لكن وحياوها كينا ولا جددي كدم بيسي شرح في عن خفك أسقون لقسين حديث ظاهر كيس لو ديو وهذا الله موجيو
manhajka saxa waa tan anaga haysan kaliya inta kale dhan way qaldan yihiin waa inaana naceeb u xambaarnaa qofka marka naceebka wuxuu u haystaa qurba ila ilaahay inuu dhawaanayo ziyaadatul iimaan ay kamid tahay inuu naceeb xambaaro naceebkaasna waa cudur xun qofka haduu ku dhaco in the end wuxuu ku dhamaanaya isaga iyo dadkii u dhow kaliya inuu jeclaado ama isaga kaligiisa inuu isjeclaado markii dambe oo wax kale dhanba ma aragtay usan qiimeeynin marka yaani naceebka waa saan ku sheegay wax islaamka qabo marna waxaa qof waliba ogsoon yahay oo habeeraatee aan qarsoonayn si caalana oo dibadda ana wala fadhiistay wadaadka Shibili in isagiyan ku aqoon shakhsiyan an background-kaaga khalfiyadaadan midna waxba kala socon in uu gaalaysiin degdega kugula dhiirado maxaad keenaad isleedahay arrintan la xiriirda in qof shakhsiyan toos loo gaalaysiin qofkaasi waa gaal iyo nabal dad wax ka bidhaamin lahayd ama su'aasha ku saabsan dagaalka naga dhaxay aniga iyo Shibili yaani sunnadii Ilaahay hortay ka mid tahay oo waagi nabigan iyo ambiyadii ka horeysayba mar walba waxyaabo qaar oo lagu tilmaami jiray mana jiro caalim soo baxay Ilaahay subhanahu wa ta'ala qabuul siiyay dad qaar ay ku taasirana jeclaadaan illa in la gaalaysiiyay mooyaane يعني أبي حنيفة حورجر قفك الشيخ من نقن كرو إلا لقى جالسية إمام الشافعي واجيس أو مالو بلوغ إيمان علمي سلسلة دونا مساجد الخار حديث على أورت الأورجر النبي أنا وحيري يأتي محمد بن إدريس وهو أشد على أمته من إبليس وعصبيح دان محمد بن إدريس إمام الشافعي ويان أمته إذا إبليس وقدرين هاي مركز جالسين توحجر أهيد أو سعتي إمام أبي حامد الغزالي نحكوليه استصغر من لا يرمى بالكفر والزندقة يا رئيسو خفك دام قالنما إذن ديقنما لو قلت المامين يعني خف جرا وما خف كاس مركا خفك سو أجرا وحكمتها علاماتك أو ما أركتي يعني خفك إنه ما أركتي إله أني معي إن لحسده إن لقاليسي إن لوحي أنا مركا Shibili أنا شخصيا أقون اسكو ما باللهين weligeygana duruus xataa ma aanan dhageysanin kalbi yarina soo maraan mararka qaarkood mooyaane laakiin aan interest aan siinin kadis ay ugu noqdo dabcan markuu magacayga anagoo 5 qofood aan soo sheegay markuu waxaan isiri adiga horta waaba kugu degdegay ragan kalena maxay ka hor horta waxaan la yaabi jiray dhalinyarada qaarkood oo ma aragtay ku degdegi jireen comments-yaashooda gaal tahay gaal way waxaan oran jiray war culimadooda may tarbiya siiyaan anaga wiligeena waxaan ugu la tarbiyay qofka 99% haduu la yimaado calaamad cadeynaa inuu gaal yahay hal calaamad cadeynaysa inuu muslim yahay taa ayaan ku xukminaynaa muslimnimadiisa yani 99 lagu gaaloobay dhibic yar oo haysta inuu muslim yahay taa ayaan ku cadeynaa inuu gaal Abdullah ibn al-Muqri imaamkii ahaa kitaabkiisa uu sharx ar-rawda oo sharxay yani markii la weydiiyay qofka gaal maxuu ku gaaloobi karaa wuxuu yiri إما تكذيب لأحد الرسل أنبياء متكمد إنه بينيرا أنا كاس النبي ما بقين أو جحد بآية من كتاب الله أما إنه كو قالوا آية قرآن كمدة يرى آية داس مجرته لكن إن ما أركتي يعني وحياوك هل أنت أسكب أحسن خفك لو قاليسيو runtii yani anima oran kariyo Shibili jahliya u geysawta isaga uu soo maray dhibaato noocaas oo kale hadda koor dad kale ishaysteen isaga la gaalaysiiyay groupkiisa waxa ku kaliftay inuu 3 kitaab ka alifo oo ka sheekaynayo qofka in lagu degdegin gaalaysiintii yani si fiican oo ma aragtay oo nuqul badan u soo qaaday oo ku sheegay culimadu waxay ka yiraahdeen qofka lagu degdegay gaalaysiinta ee cidaar qofka in loo sameeyo intii loo sameyn karo wixii la mid ah waxa laga yaabaa inaad daawad clipka isaga iyo qolyo oo takfiiriyeen ay murmaayeen oo xataa kulaha warqafka xataa hal salaad dukado ama laba salaad yani in ma aragtay la gaalaysiin karo salaada kale xataa duu inkiro marka isaga uma maleynay jahli inuu u geystay gaalaysiinta oo gaalaysiin ha walakin yani waxaan u arkaa kaliya mushkiladu waxa weeyaan manhaj dad qaar ay ku qanacsan yihiin taana kaliya sax ah kii kala soo baxo لابد وإن شابضينا سيدتك أقول لحظان وأنا أقول نوجه جانسان هذا ها أنا هذا مركب فيرس عجلة هي قاعد دقيست تذكر وحن كل رجليا وردتك حتى يجي سهر جيد دقيست وحلقها وأنا وحنا كخل دم إيه نكسح سنادين حر عقوشنا هاتو ها عقوش حرها هاتو ما يلو بك دقيست خفك إسكو كل صان تاسو كلا لقوية قانا إلين عخل إلى دتك حسي وحين كل ميزامان لكن خليها ما دام كل صان دنك هذا جرين دتك أن خفك أنا صباح سماها هل خف أنا جنا ويدا ها التاجو dadka soo ugu diro aniga on saan oo ahaada marka saa daraadeed ayaan waxaan u arkaa horta
weerarku igu soo qaaday ma ahayn ilaahay dartiis ikhlaas kuma jirin ee waxay ka ahayd adduunyo darteed yacni ninkan wuu soo baxay mana ogolniin dadka inay jeclaadaan oo ku xirmaan marka waa inaan dadka ku dirnaa saa ugu dirnaa waa inaan idhaahaa ninka waa gaal ha marka sidaa daraaddeed ayuu ma aragtay midda kalena aniga haddee waa iska garan kartaayo qofka hadduu ku gaalaysiiyo cay ka weyn ma jirto wax walba aflagaada hadda aniga lagu tilmaamay inaan ku hadlay tiisa ka weyn gaaladnimo igu tilmaamay aniga weligay gaalna ma oran munaafiqna ma oran zindiiqna ma oran mulxidna ma oran mustalaxaadka diiniga oo ma aragtay ahkaamka karatibna dhan marna ma isticmaalin waxaan isticmaalay ma xigmadu yar Xasan al-Basri qofka faajirka ah qaawiya jeexjeexa si ay dadka isaga ilaaliyaan ninka waxa ay muuqatay inuu xogaa fujuur ku socdo markaan sii baarayna kaligeyga ma ahayn dad badan iga horeeyay oo hore u gaalaysiiyay suufiyiinta mudana saarnaa oo ka hadlaya kaliya badan ka duubay Sheekh Abdullahi Sagal Sheekh kale ma garanayo Sheekh Abdullahi Sagal soo kale Ali Raage dad badan marka iska soo marka waxaan islaa ninka da'diga way weynaatay aqligiisa xogaa ma ahayn bislaado oo yiraahdo war gaf intii hore kugu filan ilan kelmadaas qofkan waa gaal qof bay ku laabanaysaa ama qofkii la yiri ama asxaabtii way ka baqi jireen saalixiintii hore way ka baqi jireen qofkii ahadiis nabiga waxa jirta nabiga ku sheegay qofkii waxa sameeyay waa gaaloobay يعني سباب المسلم فسوق وقتاله الشرك مسلم كإن لا عاية وفسق نمو إن لا دجالمنا وقال نمو هدنا أصحابتي ويكون يرون وين كي مسلم لا دجالمي خوارج تاكمد آد ومسلمين لا دجالم قالوا وين يرهذان وكا يعني إلهي أقبخ إن كلمة داس قال نمو يكون بدك دقيقين صالحين تنا قال نمو يكون بدك دقيق جرين وحيوه قوي موي لكن خف كان إنه ما عرفتي سجد دقدقو خف كان مقع هان عيانيو oo intaan aan weydiinay waa hagaagay aayad ama xadiis ii keen cadeynaysa inaan gaal ahay ma jirto haddana waxaan sii ogaaday marka khiyaanat ilmi inay meesha ku jirto oo cilmiga xataa khiyaana kala qarqarinayo waxyaabo qaar oo aqwaal shaad ah inuu soo qaato kule hebel sidaan yiri jamaaca noocaas oo kale ku yimid oo yaani culimadan hore uga hadleen aqwaashaas kuwii kalena yaani inuu ma aragtay kala qarinayso oo dantiisa u gaaro marka taa waxay uu kaliftay inaan dadka tusani kan هيبت احترام إنه سن مدنين اللي هو باهي يعني كأن ما عرفت لو صار بنان دقة سيدك إسقى إلاليان هذا وحكي كدم بيو أو ما عرفت عن قيمة لو يلين لأن مسارد حكومة ما هذا عم فرعونه يا فرعون كان دقة سيكو قارتي لأني ما أتشيقت شعبي وكير عادين كأي قد دكتور مركز قيمة يسمى وحو يبون بونسان وحي وكلف دنتي إن أنا شكت إله إله لما صرت إله ها مركز عادين كأي قرتين تنصاصو كلوادتك يا حاجة بونبونيان وحي مركز تيو سجنا كوكت صامي سادرادو marka wuxuu yiri maydaan dacwa aniga kaliya ay xiran yahay cid kale inay soo gashaan oo ma ogol cidi soo gasho oo manhajkeena wadanin waa inaan istaam saara marka waxaan u arkaa taa inay tahay wallahi